ma maqashaa muran u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya oo isku haystaan hawada wali ma isku dayday inaad wax ka ogaato murankani halka uu ka soo bilaabmay iyo sida uu ku yimid ma isweydiisay sidee bay markii horeba ay ku bilaabeen hawadan maamulkeeda iyo gacantuheynteeda goorma ayuu soo bilaabmay maamulku hawadu sidoo ku soo socday yaa maamuli jiray yaa gacanta u galiyay dhammaan su'aalaha wali ma isweydiisay bal haddaba ina mari si aan kaaga dabageeyo halka ay ka soo bilaamatay iyo sida ay ku timid maamulka hawada Soomaaliya iyo Somaliland. International Civil Aviation Organization ayaa waxay tahay hay'ad ka tirsan qaramada midoobay isla markaana waqti xaadirkan ay xarunteedu ugu weyn ay ku taalo magaalada Montreal ee dalka Canada. Hay'adda ICAO ayaa waxa ku midaysan 193 dawladood xubin ka yihiin qaramada midoobay taasoo macnaheedu ay tahay maadaama hay'adda ICAO tahay hay'ad qaramada midoobay in aanay jiri karin dal xubin ka noqon kara ICAO oo aan qaramada midoobay aan ku jirin maamulka hawada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxa uu soo bilaabmay kadib markii ay midoobeen 1960 July oo ay dhiseen dawladda Soomaaliyeed kadib 1964 ayaa waxa la aasaasay hay'adda loo yaqaan SCAMA oo u qaabilsaneyd duulimaadka hawada rayidka ee dawladda Soomaaliyeed SCAMA ayaa waxa loo soo gaabiyay Somali Civil Aviation Meteorology Authority hay'adda SCAMA ayaa waxa ay shaqeynaysay intii u dhaxaysay 1964 ilaa iyo 1991 iyadoo si buuxda gacanta uga haysay hawada sare ee Soomaaliya iyo Somaliland kadib burburkii dawladda Soomaaliyeed 1991 waxa dhacday maqnaanshiyo iyo cid gaar oo laga xisaabtamo hawadii Soomaaliyeed maadaama aanay jirin cid si gaar gacanta uga haysa ICAO iyo UNDP ay bilaabeen in ay iyagu gacanta ku dhigaan isla markaana la wareegaan hawada Soomaaliyeed taariikhdu markay 1993 saddex sano kadib 1996 ICAO ayaa waxa la timid mashruuc ay ugu magac dartay CACAS mashruuca loo yaqaan CACAS oo lagu maamulay hawada Soomaaliya ayaa macna ahaan wuxuu ahaa Civil Aviation Caretaker Authority of Somalia taasoo macnaheedu noqonayso hay'adda xilgaarsiinta duulimaadka rayidka ee Soomaaliyeed hay'adan ayaa si wada jir waxa ay u maamulayeen labada hay'adood ee ICAO iyo UNDP iyadoo oo kharashka ka soo xarooda duulimaadka hawada Soomaaliya lagu marayo ay UNDP u isticmaalaysay horumarinta eelaboodhada iyo dekedaha laga soo dego ee madaarada halka ICAO-na ay iyadu maamulaysay isku socodka jawiyada khadadka hawada laga soo bilaabo 1996 ilaa iyo 2012 waxa ay gacanta ugu haysay hay'adda ICAO si buuxda hawada Soomaaliyeed ama teeda hoose ha noqoto ama teeda sare ha noqoto laakiin wixii ka dambeeyay 2012 ilaa iyo 2017 ayaa waxa bilaabmay xil wareejin ee hay'adda ICAO ay ku wareejinaysay maamulka hawada dawladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda ay dhiseen ee loo yaqaan SCA ayaa waxay ka mid ahayd hay'adda CACAS oo loo soo gaabiyay iyadana Somali Civil Aviation Authority oo ka hoos dhashay CACAS ayaa iyadna Muqdisho loo soo wareejinayay intii u dhaxaysay 2012 ilaa iyo 2017 hay'adaas ayaa waxay sameysay isbedel aad u ballaaran isla markaana ay tababartay shaqaalo qalabayn casriya iyo dhismihii looga baahnaa hawada la wareegto kadib 2017 dawladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda SCA ayaa waxa ay la wareegtay maamulka hawada qaybteeda hoose iyadoo ku shaqeynaysa waxa loo yaqaan Class G marka laga hadlayo waa maamulka hawada wixii ka hooseeya 24500 oo feed wixii ka hooseeya marka la maamulayo ayaa loo yaqaan Class G laakiin wixii ka sareeya waxa loo yaqaan Class A taas oo Soomaaliya hanatay wixii ka dambeeyay 2023 hawada Soomaaliya loo dalacsiiyay inay noqoto Class G laakiin su'aashu waxa weeyaan Somaliland aawi Somaliland ayaa weyday xuquuqda ay ku maamuleysay hawadeeda markii ay la midowday dawladda Soomaaliya si ay ula dhisto dawladda Soomaaliyeed
laga soo bilaabo 1960 ilaa 1991 Soomaaliland waxay si toos uga mid ahayd dawladda Soomaaliyeed laakiin dib u soo noqoshadii xorriyadeedii 1991 Soomaaliland oo dawlad iyo dal madax banaan noqotay ayaa waxa ay sameysay inay dadaalo dheeraad u gasho sida ay hawada gacanta ula soo wareegi lahayd gaar ahaan qaybteeda ee xaq iyo xuquuqda ay u leedahay taasina ma hirgelin ilaa iyo intii la furayay wada hadaladii 2012 ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland sanada markay ahayd 1999 ayaa waxa lagu qabtay shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed magaalada Carta ee dalka Djibouti halkaas oo lagu dhisay dawladii kumeel gaarka ahayd ee Cabdiqaasim Salax Xasan oo madaxweynaha ka ahaa Soomaaliland ayaa geesta kale waxay meel marisay inay gabi ahaan balaashay dhammaan wada hadaladii Soomaaliya ay la galeysay oo ay Soomaaliya wax miisas kugu iman doonin haba yaraatee taas oo meel mariday inay hay'adda ECHAWA si dhammaystiran gacanta hawada Soomaaliya ugu sii hayso ilaa inta ay dhalanayso dawlad hanan karta maamulka hawada Soomaaliyeed that means waa Soomaaliland iyo Soomaaliya oo isku jira ama kala huleelay oo mid walba hawadeeda si gaar u la wareegi doonto laga soo bilaabo 1999 ilaa iyo 2011 Soomaaliland waxay ku adkeysanaysay inaan wax wada hadal la gelin Soomaaliya balse dawladda cusbeeda dhalatay ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaay madaxweynaha ka ahaa iyo baarlamaankii xilliga jiray ayaa waxay si toos u meelmariyeen in la furo wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland iyadoo xukuumaddu ay tahay cidda ka wakiila ummadda reer Soomaaliland ee wada hadalka u galaysa laga bilaabo 2012 oo furmo wada hadalkii ugu horeeyay ilaa iyo 2015 oo la wada hadlayay ayaa waxa dhacay tiro 6 kulan oo wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhaxeeyay bas sida ay u kala huleeli lahaayeen ama ay danahooga uga wada hadli lahaayeen sidaa daraadeed 6 kulan ayaa waxay ka kala dhaceen hal kulan oo London ka dhacay 2 kulan oo ka dhacay dalka Turkiga gaar ahaan magaalooyinkiisa Ankara iyo Istanbul kulan ka dhacay Dubai kulan kale oo ka dhacay Djibouti intuba waxa la isla afgartay oo la isla saxiixday arrimo dhowra oo ka mid ahaayeen in aan la siyaasadeyn arrimaha horumarinta in aan la siyaasadeyn dhaqaalaha in aan la siyaasadeyn hawada iyo waxyaabo kale la mid ah sidoo kale kulankii ka dhacay magaalada Istanbul 2014 Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay ku heshiiyeen si wada jira inay hawada kala soo wareegaan gacanta ECHAWA isla markaana ay iyagu gacanta ku dhigaan maamulka hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland halkaas oo ay labaduba ku heshiiyeen inay si wada jira u soo magacaabaan min 2 xubnood oo ka socda Soomaaliland iyo 2 xubnood oo ka socda Soomaaliya maamulana hawada Soomaaliland dajiyana dhammaan habraacyada loo baahan yahay ee lagu maamulayo hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland balse arintani ma hirgelin oo sababtoo ah wada hadalkiiba wuxuu burburay 2015 wixii ka dambeeyana wada hadal dambe lama gelin ilaa intii la gaarayay 2020 oo hal mar lagu kulmay magaalada Djibouti mar kale isla markaana ay kulmeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyagoo wada hadal halka ku yeeshay kadibna wada hadalkaasina lagu heshiiyay in si dhameystiran loo diyaariyo guddiyo ka socda labada dawladood oo iyaguna ka wada hadla dhammaan wax alla wixii technical ee u dhaxeeyay ee dhammaan lagu heshiiyay 6 kulan ee ka horeeyay qaabkii loo fulin lahaa nidaamkii loo fulin lahaa laakiin kulankaasina isaguna meeshu ku ilaaday wax dambo daba raaca iyo wax dambo si daba socda haba yaraatee midna kama dhicin halkaas uu markaa ku soo xirmay wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland kadib markii la wareegtay 2023 Soomaaliya la wareegtay hawada maamulka qaybteeda sare waxa soo baxay dhacdooyin dhowra oo iyo murano dhowra oo ka dhacay hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland taasoo Soomaaliland eedo fara badan u jeedinaysay qaabka ay u maamulayso dawladda Soomaaliya hawada Soomaaliland iyadoo ka baxday dhammaan heshiisyadii lagu heshiiyay oo ay ka mid ahaayeen in aan la siyaasadeyn hawada haddaba dhammaan falanqeymaha aad arkaysid iyo taariikhda dheer ee ka soo sheekeynay ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo qaabka hawada maamulkeedaba intaba waxaad maanta ka dharagsan tahay taariikh ahaan nidaamku ku dhisan yahay therefore maxay tahay haddaba waxyaalaha imika taagan ee u baahan in la xaliyo ama in laga daba tago si wax looga qabto xalku waxa uu ku jiraa waa in
sidii markii horeba loogu heshiiyay 2014 maamulka hawada loogu maamulayay in mar labaad laga heshiiyo isla markaana la iskugu yimaado dhammaan heshiisyadii hore ee la galayna sideedii loo fuliyo dagaalka xigaana waxaynu ku soo gudbin doonaa falanqeymo inta ka sii balaaran iyo kuwa kale la midaba fadlan ku xidhnaada page-keena Deeqsi Hub dhammaan inaad kala socotaan informationada iyo warbixinada kala duwan ee aan kolba aan soo dhigi doono Deeqsi Hub waa bartaada aad kala socon karto sheekooyinka aan wali la sheegin